maalin ka mid a maalmaha cizziga leh ayaan u hooday Nairobi, Kenya. tii oo dadweynuhu farxad ciideed ku jiraan waxaa telefoon iiga yimi Muqdisho, Soomaaliya. waa dhambaal wanaagsan oo waxaa la igu wargeliyay xukuumaddu inay ogolaatay barnaamijkii aan bil ka hor codsanay. taasi waxay keentay inaan hakinay filim iyo barnaamijyo aanu ka wadnay Kenya. si dhaqso ah waxaan u xirxidhay shandadahaygii si aan ugu dhaqaaqo dhulkii hooyo ee Soomaaliya. waddaniyadu weligeedba waxay ahayd xidhiidh xidhiidha adag oo u dhexeeya qofka iyo dhulkiisa. waa dareen meel walba oo aad joogtid ku soo dabaya oo si walba dalkaagii aad uga durugto dib kuu soo celiya. waa maalin maalinteeda xusid mudan, waa cawayska 1 Luulyo oo showqarixii qarax jacayl lagu beddelay, midabada jeegaanta iyo indhadaraandarka la yaab kale lagu beddelay. maanta waxaan barbar dhigaynaa maalintii ay walaalaheen xorriyada u dagaalameen. waxay iska xoreynayeen gumaysi iyagoo raba inay xorriyaddooda soo ceshadaan. maanta annaga waxaana hor taagan argagixiso, waxaana hor taagan abaar, waxaana hor taagan kala qoqobnaan, waxaana hor taagan qabyaalad, waxaana hor taagan rajadeenna oo daciiftay, waxaana hor taagan hamigeennii iyo qabkeennii oo hoos u dhacay. iyadoo ay intaasina hor taagan tahay ayaa haddana waxaa muuqda iftiin yar. waa cusub baa u baryay waddanka maxaa yeelay waxaa dumay darbigii u dhexeeyay dawladda iyo shacabka. waxaa oogsaday dareenka waddan jacaylka iyo rajada, jidkii nabadda iyo nolosha oo keliya baa bannaan. sidaas daraaddeed caawa waxaan isugu nimid keliya halka jid oo noo bannaan. haddii aan gadaal u noqonno waa dagaal iyo qabyaalad. haddii aan meesheenna taagnaanno waa argagixisa iyo qarax. hal jid uunbaa noo bannaan, waa inaan hore u soconnaa. hal jid uunbaa noo bannaan, waa in aan ka dhabaynaa isbeddelka lagu doortay madaxweynaheenna. hal jid uunbaa noo bannaan, waa inaan gacmaha isqabsannaa dhisannaa ciidan. February 23 madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxa uu u magacaabay Mudane Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, kaas oo 1 bishii Maarso si aan kala hadh lahayn golaha shacabku codka kalsoonida u siiyeen. isla bisha 29 Mudane Xasan Cali Khayre waxa uu horgeeyay golaha shacabka xubnaha golaha wasiirada oo ka kooban 68 xubnood. wasiiradii waa la ansixiyey, xafiisyadiina way la wareegeen, xukuumaddiina way 100 cisho jirsatay. diiwaan filimisna waxay daah rogaysaa oo dabagelaysaa waxqabadka 100ka maalmood. markii uu xafiiska la wareegay ra'iisul wasaare Khayre waxa uu abuuray jawi shaqo oo isla xisaabtanku sal iyo baar u yahay. intii aanu bilaabin waraysi dheer oo aan ra'iisul wasaaraha la yeeshay waxaan ku kadiyey su'aal ah: aftahamada maxaad wadaagtaan mudane? wax walba oo aad ka shaqaynaysid haddii ay dhabkaa tahay, haddii aad rabtid, haddii ay xanuun kugu hayso, waxaa laga yaabaa inay kaa soo baxaan hadallo aan kaa soo bixi lahayn marka aad meelaha caadiga ku sheekaysanayso. waxaa laga yaabaa marka inuu ilaahay noo kaalmeeyo oo nagu kaalmeeyo in codkeennu uu dalka wax u taro. ما شاء الله aad baad maasantahay ra'iisul wasaare. markan waxaan jecelnahay inaan wax ka weydiino xukuumaddaad way 100 casho jirsatay. marka waxqabadkii 100 casho maxaad nooga sheegi kartaa waxqabadkii xukuumadda? waxaa muhiim ah marka ugu horeysa oo waxyaabaha ugu waaweyn oo xukuumaddu ay qabatay kamid ah, waxaa muhiim ah in la abuuro dhaqan shaqo. dhaqankaas shaqo waxa ay la mid tahay adoo ganacsi bilaabay oo faa'iidadiisa ay mustaqbalka ku soo bixi doonto. waxaan bilawnay dhaqan shaqo. waxaan ka bilawnay inaan golaha wasiirada dhan intaan wadno meel isugu geeyno ay 2 cisho iyaga kaliya shiraan, ay iyagoo wada jira ku heshiiyaan waxa aan ugu yeero mas'uuliyad wadareed ah waxyaabaha ay qaban doonaan. iyadoo wasaarad walba ay qoratay 1 2 3 4 5
ra-iisul wasaaraha iyo ku-xigeenkiisuna ay kula xisaabtameen ay yidhaahdaan cabirka laydinku cabiri karo waa sidaa macnaheedu waxay tahay qofkii wasiirka ahaa ayaa waxaa loo bedelay mas-uuliyad wadareed macnaheedu waxay tahay wasiir walba uu ogyahay wasaaradda kale wax laga rabo horta waxaan isleeyahay in shaqadii ay dhinac u dhaqaaqday in fursado ay jiraan jawaabihii aan ka sugaynay dabkaas aan kululaynayna ay soo dhow yihiin waa yidi diilo horta waa farxadda koowaad waxaan aad ugu faraxsanahay sida prime ministerku u maamulo waxmid ya sagaalka la bilaabaa kabinetka sagaalka hadii la soo geliyo albaabka la xiraa albaabka la xiraya waxaad soo doonaya adeerooda aqalka iska hurud ya marka qof walba in la xisaabtamo oo time-ka lagula xisaabtamo ayaa very important barnaamijkii xukuumaddu u gudbisay baarlamaanka oo ka koobnaa 10 tiir oo waaweyn waxaa hortabinta la siiyey gurmadka abaaraha si weyn ayaana loola tacaalay abaartii sima ee geyiga Soomaaliyeed ku baahday yoolka koowaad waxay ahayd ay xukuumadda u yaalla gurmadka abaaraha taasoo wax weyn aanu ka qabanay oo aanu abaabulnay dadweynaha Soomaaliyeed shacabweynaha Soomaaliyeed dalka gudihiisa iyo dibaddiisa qurba joog ha ahaato dalka gudihiisa ganacsato ha ahaato muwaadiniinta Soomaaliyeed caadiga ah ee dadka shakhsiyaadka ha noqoto gurmad xoogan ayay sameeyeen marka yoolka koowaad wuxuu ahaa gurmadka abaaraha aniga waxyaabihii ugu horeeyay mulaaxadaadkii ama observationskii aan sameeyay waxay ahayd shaqaa socoto laakiin isbarbaryaac badan ayaa socday marka isbarbaryaacaas si looga hortago oo hawsha la qabanayana mid wax ku oolay u noqoto dadkii baahnaa oo loo gurmanayayna gurmadka ugu wanaagsan sida lagu gaarsiin karo in aan samayno waxa la dhaho coordination tallaabadii ugu geesiyoonayd waxay xukuumaddu u qaaday dhinaca amniga oo markaa laga yimaado joogtaynta mushaharaadka iyo gunnooyinka hay-adaha amniga waxaa qabsoomay ka guulgaaridda xakamaynta hubka sharci darrada ah taasoo kordhinaysa nabadda iyo deganaanshaha dalka howlgelinta ciidamo u gaar ah nabadaynta iyo xasilinta caasimadda kuwaasoo kormeero iyo howlgallo joogto ah ka fuliya magaalada qaadidda jidgooyooyin sharci darro ah oo lagu waxyeelayn jiray shacabka loogana qaadi jiray lacag sharci darro ah dib u habaynta guddiga qaranka ee iskudhafka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo diyaarinta qabyo qoraal qorshaha istiraatiijiyadda difaaca qaranka samaynta guddi qiimayn ku sameeya tirada iyo tayada ciidanka xoogga dalka iyo guddi kaas la mid ah oo qiimayn ku sameeya tirada iyo tayada ciidanka bilayska iyo kuwa nabad sugidda dib u howlgelinta xarumihii xuduudaha oo dhammaantood burburay xilligii dowlad la'aanta waxaana hadda si toosa u shaqeeya xuduudaha magaalooyinka Doobley beled xaawo doolow ceel berde iyo balambal ugu dambayntana ololaha barnaamijka taakulaynta ciidanku waxa uu qadarin u yahay amniga oo ay shacabka Soomaaliyeed qayb ka noqdaan waxaad ogaataa waddanka Soomaaliyeed caasimadda muraayadda Soomaaliya muqdisho hadday nabad noqoto waxaan rajaynayaa hadduu ilaahay raadi inta kale nabad ay noqon doonto waad dareemi kartaan cadowga la dagaalamaya Soomaalida oo shabaab nimanka la yiraahdo ugus meesha kaliya xoogi saaran caasimadda wuxuu ogi caasimadda hadday marna noqoto inta kale oo israaci doonto hadduu ilaahay raado hubkii tirada badnaa ee ay nabadiidka iyo argagixisada ku soo gabanayeen ee ay falalka ka geysanayeen maanta ma dhex socdo magaalada isha marqaatiya indhihiina ku aragteen waxay taas yaraysay qorshayaashii shirqooladii abaabulnaa qaraxyadii iyo ismiidaamintii sida fudud iyadoo lagu dhex dhuumanayo ciidanka qaranka iyo ciidanka nabad sugidda iyo amniga loo abaabuli karayay aad bay u yaraysay adeegga maaliyaddana xukuumaddu waxay diyaarisay hindisa sharciyeed khuseeya dhaqaalaha sida sharciga maaraynta maaliyadda sharciga shatiyada biyaha beeraha shirkadaha sumadaha ganacsiga kalluumaysiga iyo sharciyo kale oo khuseeya kobcinta dhaqaalaha waxaa dib u habayn lagu sameeyey qaabka loo maareeyo bixinta kharashaadka dawladda si loo mariyo habraaca iyo nidaamka maaraynta maaliyadda waxaa la adkeeyey nidaamka cashuura qaadidda iyo isla xisaabtanka waxaa la joogteeyey mushaharaadka iyo gunnooyinka hay-adaha amniga iyo shaqaalaha rayidka ah wasaaradda maaliyadda oo kaashanaysa laamaha ku shaqada leh waxay door lixaadle ka qaadatay barnaamijka la dagaalanka musuqmaasuqa si loo beeqaamiyo maalka dawladda loogana jiro ku takrifal xilligan waxaa diiradda lagu hayaa sidii loo hoofi lahaa shaqaalaha dawladda waxaa noo suuro gashay
intaasoo qof oo dawladda u shaqeeya inaan qof walba account loo furo qof aan account loo furin oo lacag la siinaya ma jirto waxaan diidnay in kiis lacag qof intuu soo qaado xafiiska la galo oo shaqaalaha igu yeedha dabeetana intii joogtana sideenta kalena maclish ya qof walba account loogu shubo la istaba galo waa in si taasi u dhaqan gashana habkeen aynu u isticmaalayno xisaabaadka iyo maaliyadda ay yihiin kuwa furan kuwa aan midmadow lahayn nidaam xisaabeed oo isla xisaabtan leh isla xisaabtanku waa waxyaabaha hormuudka u ah ee halgadhaga u ah xukuumadda federaalka Soomaaliyeed in qof waliba shilin Soomaaliyeed oo soo baxay uu cad yahay sida uu soo baxay shilin Soomaaliyeed oo ay xukuumadda iyo dawladdu ay kharash garaysay uu cad yahay sida ku baxay qof walbana loo qabsanayo oo uu mas'uul ka yahay habka uu u baxay iyo habka uu ku soo galay furnaantaasi waanu awalba suurta gelinay waa shaqaynaysaa dawladdani way la dagaalamaysaa musuqmaasuqa dhaqaaluhu ma kobcayo haddii uu musuqmaasuq jiro amniga lama sugi karo haddii uu musuqmaasuq jiro horumar lama gaari karo haddii uu musuqmaasuq jiro qorshaha horumarinta qaranka oo ka duulaya baahida dawladda dhexe iyo tan gobollada ayaa isku dubaridaya jihaynayana qiimaynayana islamarkaana dabagelaya qorshaha iyo ku talagalka qaranka waxaana markii ugu horeysay xukuumaddu ku guulaysatay inay hay-adaha qaramada midoobay iyo kuwa kaleba ay iyagu u jeexaan qorshaha ay kula howlgelayaan waa kan wasiirka qorshaynta oo arrimahaasi xidhiidhsan uga warrama deeqihii Soomaaliya la siinay gaar ahaan midowga Yurub oo $100 milyan sanadkii ah oo markii hore nidaamka ahaan jiray in hay-aduhu ay u tagaan xafiiska midowga Yurub Nairobi xafiiskuna lacagta ku bixiyo hadda waxay noqotay inaga inaan maamulo inaanaga soo qorno baahidan waxay tahay projectska diyaarino meelihii la geenay mashaariicda ka tashano saxiixeedii iyo wareejintoodii iyo fulintiina inagu leenahay dabagalkii qiimaynta inagu leenahay marka waxaan inagu diyaar u ahay inaan la samayn doonin marka la fiirinayo midowga Yurub oo deeqaha ku bixinayaan Soomaaliya dhinaca kale USAID Mareykankana wada hadal baa noo socda iyagana dhawaan ay nagu soo wareejin doonaan aan heshiiska gali doona la yiraahdo dawaad oo iskaashiga horumarka la yiraahdo kaas oo isaga laftigiisu noqon doona wax allaah waxa noo rabno ma wax kale aan lacag lagu bixin doono oo waxyaalahan u baahan inaan sameeyno waxyaalo qorshaha horumarinta qaranka ku salaysan oo aan meel looga baxsanayn qorshaha horumarinta qaranka wuxuu keenay baahiyihii gobollada iyo dawladda dhexe iyo wixii loo arkay in dadka Soomaaliyeed u baahan yihiin loo qabto waxyaalahaas ka mid ah waxa kaloo ka mid ah inaan bilownay xeerka hagaaya hay'adaha samafalka kuwa Soomaalida iyo kuwa ajnabiga consultationkii wada tashiga ayaa socda wax sharci waa la qoray tarjumaadiisa waa la dhameeyay hadda waan shirnay maamul goboleed waa la shirnay Kismaayo hadda joogan laftigeeda waan la kulanay madaxda reer Kismaayo qorsheynta reer Jubbaland hay'adahaas ma lahaan jirin sharci hadda ka hor haga sharcigaas waxa hagaaya sida hay'adaha ajnabiga waddanka yimaada oo shaqeyn markay soo galaan ilaa maalintii baxay mashruuca dhamaad talaabo kasta ay qaadayaan mashruuc kasta fulan uu yahay mid ka turjumaya baahida ummadda Soomaaliyeed maanta waxaa halkan ka dhacaya dhacdo taariikhi ah oo aan nasiibsaday inaan goobjoog ka noqdo waxaa markii ugu horreysay bacda laga jarayaa raadarra cusub oo lagu hagi doono hawada Soomaaliya waxaad ogsoon tahay hadda hawada Soomaaliya waxay ku jirtaa meel aanan baraan la controlin oo uncontrolled manaha area space oo hawada kormara Soomaaliya waa uncontrolled waa galaaska ugu hooseeya marka la qiimeynaya manaha hawada spacekeed oo grade G lagu magacaabo marka qalabkan wuxuu ka saarayaa ka oo wuxuu ka dhigayaa meel la controlo oo service provider ay noqonayaan manaha in hagistii hawada qalabkan haddii la isticmaalo uu fududeynayo macnaheedii ay samaynayso in dhaqaale kordhin ay kasii abuuranto marka waxyaabaha ugu weyn ee aadka aan ugu faani karno waxaa ka mid ah in finally ICAO oo hay-adda UN u qaabilsan maamulka hawada ay ogoshahay ama ogolaatay in xafiiska Nairobi ee laga haga hawada la soo xiro oo Soomaaliya gudaheeda laga maamulo waxaa kaloo ku heshiinay qalab noo yaalay oo ahaa qalab casri ah loogu talagalay maamulka hawada inaan negotiation badan ka galno ay noo fasaxaan naloo ogolaado sidii qalabkaa loo rakibi lahaa si aan hawada si degdeg ah ula soo wareego
si lama filaan ah ra'iisul wasaare khayre waxa uu kormeer ku tegayaa garoonka aadan cadde fiidka injineeradu waxay isu diyaarinayeen inay gebagabeeyaan hawl ay muddo soo wadeen. garoonka aadan cabdulle aad buu u mashquulsan yahay mar kalena aad buu cidhiidhi u yahay. adeeg casri ah ayaa loo darbay xilliganna waxaa la hirgeliyey in habeenkii uu garoonku shaqeeyo. wasiirka gaadiidka iyo duulista hawadu wuxuu noo sheegay in airportka uu shaqeeyo habeen iyo maalin. arrintani waxaa laga yaabaa dad badan in aynan aad u fahamsanayn, laakiin ahmiyadda uu leeyahay waxaa weeyaan maalintii sidaan u sheegay 100 iyo dhowr diyaaradood ayaa soo dega. diyaaradaha schedule kooda waa very tight, waa isku dhib qaban, marka si aan firaaqo u siino diyaaradaha xilliga ay soo degayaan dadka ka imaanaya wadamada fogfog ee North America oo kale iyo Europe oo kale soo degi kari lahaa habeenkii ma soo degayaan. taasna waxay kalifaysaa inconvenience tira badan ayaa horseedaysa, qiimaha tigidhka ayay kor u qaadaysaa, diyaaradihii naftooda flexibility baa ka lumaya. marka waxaan ku guulaysanay in aan gelino nalalkii looga baahnaa runwayga si diyaaraddu ay habeenkii u arki karto meesha ay ku soo degayso. wasaaradda warfaafintu waxay hagtaa oo mas'uul ka tahay istiraatiijiyadda iyo siyaasadda warbaahinta dalka, waxayna wasaaraddu meel marisay wax ka beddelka iyo ansixinta xeerkii saxaafadda. injineer yariiso waxa uu ka warramayaa muddadii 100 cisho ahayd waxa uu qabsoomay wasaaradda warfaafinta. waxaan ku dhaqaaqnay kow inaan u xaqiijino suxufiyiinta Soomaaliyeed sida dastuurka uu qabo qodobka 18aad waxa loo yaqaan xorriyadda hadalka ama xorriyadda fikirka, freedom of expression. kadib wada tashi aan la sameeyay suxufiyiinta Soomaaliyeedna waxay naga codsadeen in xeerka saxaafadda qodobo yar laga bedelo, tiina waa u ballan qaadnay. waxa kaloo noo qabsoomay waxay tahay in wada tashi aan la sameynay dowlad goboleedyada oo wasiirada warfaafinta dowlad goboleedyada ay Muqdisho yimaadeen 6 ilaa 8 May 3 casho wada hadal aan ka wada hadlaynay sidii loo horumarin lahaa warbaahinta dalka oo qodobada looga hadlay ka mid ahayd in wax ka bedel lagu sameeyo xeerka saxaafadda, istiraatiijiyadda horumarinta warbaahinta dalka, barnaamijka wacyigelinta bulshada iyo barnaamijka la dagaalanka fikirka xag jirka. waxaa guul la taaban kara noqotay 14 iyo 100 maxbuus oo muddo dheer ku xidhnaa dalka Itoobiya. in xukuumadda Soomaaliya ka shaqaysay sidii maxaabiista loo sii dayn lahaa. waa kuwan maanta ku soo laabtay geyigoodii. waa maxaabiis Soomaaliyeed oo ku xidhnaa dalka Itoobiya gaar ahaan magaalada Jigjiga. tiradooduna waa 114 ayagoo lagu kala xukumay yani xabsiyo kala duwan, qaarkood ay ku xukunaayeen 20 sannadood. marka saa daraaddeed ilaahay mahadii waxaa keenay soo dhawaanshaha xiriirka labada dal Soomaaliya iyo Itoobiya iyo ay geliyeen juhdi fara badan madaxda Soomaaliyeed. Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah. aan dul qaadanno ilaa hadalka kiisa wax dumiya uu dul maraayo kiisa wax dabiiba. aan dul qaadanno ilaa waa bari beenaalaha uu beddelaayo waaga san ee aan muranka lahayni. aan dul qaadanno ilaa dunta cad laga soocaayo dunta madow. aan dul qaadanno ilaa wadaadka wax tujiya uu ka idlaanayo qulhuwallaha lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad. aan dul qaadanno oo waa berisan daawadayaal. dowladnimadu waa dulqaad. dowladnimadu waa in la isu dulqaataa. haddii aan kulligeen isku mid ahaano waxay noqonaysaa inaan qoryo isu qaadanno. dulqaadku waa kan aan halkan ku taagannahay maanta. dulqaadku waa kan sharafta noo yeelay. dulqaadku waa kan meeshan aan harsanayno. haddii markaa warxumo tashiil uu idiin sheegay shaki dowladnimo iyo iska qabsi iyo khilaaf ayaa ka jira xamar ama u dhaxeeya xildhibaanada iyo xukuumadda ama u dhaxeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada
waxaan rabaa reer jubbaland iyo soomaaliyaba maanta inaan ugu bishaareeyo maantay ugu wanaagsan tahay waa maalintii khayre iyo khadar iyo golaha wasiirada oo wada dhan ay rakaabsadeen 3 dayuuradood oo caga dhigtay magaalada Kismaayo. waa maalintii u horeysay ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ficil ahaan ay muujiso xukun daadajin. waa maalintii indhuhu u fiiqmeen kuwa garashada iyo wadaniyadu ku dheer tahay. aniga iyo xukuumadda horta indhahay noo furtay inaan tagno Kismaayo. anigu ka ra'iisul wasaare ahaan wax badan ayaan ka soo faa'iideystay. waxaan ka soo faa'iideystay qofka xamar jooga oo aan jidadka kula kulmo iyo dadka aan Kismaayo jidadka kula kulmo hal mid ay isaga mid yihiin. dawladnimay rabaan. sharaftooda iyo karaamadooda in la soo celiyo rabaan. khilaafay ku daaleen. dan gaar ah in laga shaqeeyo ku daaleen. Soomaalinimo ayaa ugu muhiimsan qabiilka iyo qabyaaladda. macnaheedu waxay tahay dadka Soomaaliyeed meel walbo tagtid way rabaan dawladnimada. madaxdeena ayaa waajib waxa uu ka saaran yahay inaan fulino rabitaanka shacabka Soomaaliyeed. waxaa Kismaayo ku qabsoomay fadhigii khamiislaha ahaa ee golaha wasiirada ee ugu horreeyay ee ka dhaca meel ka baxsan caasimadda dalka. waxaa taa barbar socday wada shaqayn iyo isla xisaabtan. wasiirada heer federaal ayaa mid kulan ula qaatay wasiirada Jubbaland. waxaa laga sheekaysanayaa sidii looga wada shaqayn lahaa dakhliga kordhintiisa maaliyadda maamulkeeda maxay dawladda dhexe xaq u leedahay maxay dawladda maamul goboleedku xaq u leedahay sidii xog laysu wadaagsan lahaa hal cod loogu wada hadli lahaa loo midayn lahaa cashuuraha loo wadaagi lahaa khayraadka soo baxa waa shaqada cusub ee bilaabantay hirgelinteedii xukuumadda nolol iyo nabad ay ka bilowday Jubbaland waa arrinka arkaya wasiiradii maaliyadda oo wada fadhiyo wada tashanaya wixii ay ku heshiiyaan madaxweynaha dawlad goboleedka iyo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda oo soo bandhigi doona dadna shaqo wada shaqayntu halkaas si wanaagsan uga dhaqaaqi doonto guul baa mid rajeynaya halkani waa goob weyn waxaa ku kulma cidhifyada badweynta Hindiya iyo wabiga Juba. waa goob qani ah oo dalxiiska ku habboon. ra'iisul wasaare Khayre waxa uu noqday mas'uulkii u horreeyay ee heerkaas ah oo soo gaaray deegaankan tan iyo qaranjabkii. inkasta oo ra'iisul wasaaruhu labisnaa tuutaha ciidanka haddana safarkiisu waxa uu u muuqday dalxiis. waxaase la yaab yeeshay in dadka reer goob weyn oon iyo haraad ka ashkatoodeen. ra'iisul wasaare arrintaasi maxay kugu fadhidaa? waxay igu fadhidaa macno weyn. waxayna igu fadhidaa halka aan gaarnay. waxay tusaale ka tahay sida aan u jabnay. inta ay la eg tahay qaranjabka nagu dhacay qalbi jabka nagu dhacay iyo qabjabka nagu dhacay. waxay tahay meeshii ay webigii iyo baddii iska gelayeen. waxay tahay meeshii dhulkii halkaa ka ah uu iska cagaaran yahay oo beeraha laga falan lahaa. waxay tahay meeshii kalluunkii iyo argoosatadii adduunyada ugu qaalisaneed laga soo saari lahaa. waxay tahay meeshii biyihii loo baahnaa in koronto laga sameeyo laga helayo. waxay tahay meeshii haddii dunida loo furo ay dadka aan muslimiinta ahayn ee xoolaha haysta ay yidhaahdaan waa jannadii adduunka. haddii goob weyn lagu gaajoonayo haddii goob weyn dadka anugu tagnay leeyihiin ceelal ma haysato oo aad indhahaada adiga laftaada ku soo aragtay barwaaqada ka muuqata dhulka Soomaaliyeed intiisa kalena lagu gaajoonayo waa su'aal qof walba Soomaaliyeed ay u baahan tahay inay wax iska weydiiso. waaga mudane ra'iisul wasaare halkii ugu dambeysay barnaamijka ayaan soo gaadhnay dii aad jeclaan lahayd kelmad iyo inaad u jeediso shacabka Soomaaliyeed maxaad oran lahayd? waxaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ka codsanayaa maadaama aan soo marnay waqti aad u dhib badan haddana ay muuqatay didiilo in marka ugu horeysa aan colaadda nabad ku bedelno meel walba aan joogno. waxaan ka codsanayaa inaan khilaafka midnimo ku bedelno. waxaan ka codsanayaa inaan danta gaarka ah aan ku bedelnaa danta guud. waxaan ka codsanayaa inaan kalsooni xumada is-aaminaad ku bedelnaa. waxaan ka codsanayaa inaan eexda iyo qof jacaylka aan ku bedelnaa cadaalad hufan. waxaan ka codsanayaa
inaan qabyaaladda qarannimo ku bedelno waa inaan kala qoqobnaanta na wareerisay aan ku bedelnaa isdhexgal haddaan si kale u dhigo waxaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ka codsanayaa inaan buugga taariikhda baalkiisa rognaa oo aan bog cusub oo aan ku qorno taariikh cusub oo Soomaaliyeed aan bilowno waa mahadsantihiin